siyaasi maxamed cabdilaahi bookh xogayaha ganacsiga iyo dalxiiska ee xisbiga wadani xamse khayre aqoon-yahano iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada gabiley oo warbaahinta kula hadlay magaalada burco ayaa ka hadlay qaabkii musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro iyo guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan loogu soo dhoweeyey magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer. dhanka kale mas-uuliyiintani waxay tilmaameen in shacabka togdheer muujiyeen sida ay ugu ooman yihiin isbeddel ka dhaca dalka. maanta waxaan joognaa gobolkii togdheer burco ayaan maanta joognaa. waan ku faraxsannahay inaan ka mid ahayn wafdigii xisbiga wadani shalay tole magaalada aadka loogu soo dhoweeyey. aad baan ugu mahadnaqnaa reer burco sida fiican ee wanaagsan ay u soo dhoweeyeen xisbiga. shalay tole burco waxaa iiga muuqday garasho iyo in aad iyo aad ay u fahmeen bahashii oo waxyaabihii la dhex dhigi jiray fahmeen. maantana waxaa loo baahan yahay waa isbeddel. gobolkuna uu muujiyey inuu u baahan yahay isbeddel. sidaan qabo isbeddelkaana maanta waxaa keenay musharaxa xisbiga wadani ayaa keenay. in badan ayaa burco bari iyo galbeed iyo wax lagu xaman jiray, laakiinse maanta wuxuu muujiyey musharaxa xisbiga wadani in dadka aan la kala qoqobi karin, aan waxba iyo been loo kala sheegi karin inay isku mid yihiin Soomaaliland. waxa uu muujiyey in kursiga maanta isagoo ahaa guddoomiye xisbiga wadani inuu maanta ku wareejiyey guddoomiyennimadii xirsi cali. halkaa waxaa ka muuqda wada lahaanshaha annagoo ah gobolkii cagaarnaa gabiley. reer burco waxaan leenahay obolorta oodna yar xabataane oo mar walba waxaad tidhaahdeen gobolkii gabiley unbaa wax walba la siiyey, gobolkii gabiley oo wax walba lagu shubay oo waxba kama jiraan. miisaaniyadda dhan ee sanadkaa hal iskuul baa ugu jira gobolka. hadday gobolnimo noqoto, hadday noqoto xagga siyaasadda, annagu waxaanu ka suganaa xisbiga wadani maanta waxaanu ku haynaa ma jirta. berri ayaynu ka suganaa xisbiga kulmiye siiraayo markuu hayeen muxuu talada ayaan annagu noo dhaantay. maanta waxaad nagu xamanaysaan magaca mise wax kale. magacaasumaan ku haynaa, wax kalena ku haynaa ma jirto. waxaan u mahad celinayaa anigoon kala qaadin gobolka togdheer gaar ahaan degmada burco soo dhoweyntii la yaabka lahayd ee shalay ku qaabileen muxuu ahaa wafdigii xisbiga wadani ee uu hogaaminayay murashaxa iyo guddoomiyuhu. wax mucjisaa bay ahayd. markaa midnimo siyaasadeed baa shalay runtii dhacday. taana haddaanu nahay deegaanka aanu ka soconno weliba way gabiley bay yidhaahdeen qadow ilaa qoyta dadka ka soo jeeda haddaanu nahay waanu ku faraxsannahay midnimada siyaasadeed, walaaltinimada, wax isku darsiga. qolada reer gabiley iyo qolada bariga burcana marka horeba siyaasadda waxbay wada lahaayeen. wixii bariga burco halkuu maro unbay dadkaasina laleeyihin iyagaa nagu matala annaga heshiiska. wixii ay soo qaataan baanu la leenahay. qarankii markii hore 2 ay ahayd, imikana 3 bay noqotay. insha Allah birina 4 bay noqon doontaa. in dermadii iyo waxwada yeelashadii siyaasadeed la fidiyana waxay nagu hogaaminayeen ninka musharaxa ah madaxweyne cabdiraxmaan, madaxweynaha berita mustaqbalka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi, guddoomiye xirsi. insha Allah xisbiguna ujeedadiisu waa Soomaaliland oo mida, Soomaaliland oo dhinacooda jeeda. hadaan qolada reer galbeedka berigii hore ay soo gaargaari jirtay burco waa jaamo. shalayna waxaas beentahay baan xaqiiqdeedii aragnay. wixii aan shalay aragnay aan waxaan ku qiyaasi karaa wuxuu makhraatigu u dhacay gabaygii qaasime ahaa naqiyo roob baa ka daba iman neela jaliya. shalay naqiyo roobkii ka daba imanayay neela jaliya waanu aragnay. waxaanu kaliyeedii ku dardaaraynaa war sidaas shalay quruxda badnaa u soo baxdeen maalinta codeynta la soo baxa isbeddelka u codeeya. waxa kaloo magaaladana intaanu joognay kulley indhayn in magaalada wadan gobolkan togdheer biyo dhaan ka socdo ayaanu aragnay. dawladda iyo xukuumadda iyo wasaaradda biyaha waxaan ugu baaqanaa in war biyo dhaanka ka qayb qaata. dadkii miyigu aad bay u haraadan yihiin. togdheerna idinka uu dawladdu ay sugaysaa. runtii dhacdadii shalay dhacday runtii reer burco sida maqaamka sare ay ugu soo dhaweeyeen runtii guddoomiyaha iyo musharaxa xisbiga wadani kolley ka xildhibaan ahaan iyo runtii tiimkaygan ka socda galbeedka aad baan ugu faraxsannahay inaanu kala soo qayb galno dhacdada burco ka dhacday. danuunba ka dhaxeeya midnimo ka dhaxaysa siyaasadeed burco iyo gabiley. taasaanan u soconaa runtii inaanu xoojino qaybtayada gabiley ahaan aan muujino. maantana baahida isbedel ee muuqataa meel walba deegaan walba way ka muuqataa sida loogu baahan yahay. ha ugu yaraato dhibaatada keentay digreetadii runtii lagu saaray inaan golayaasha deegaanku awoodii lagaga qaaday inay maayiradooda kula xisaabtamaan. waa dhibta ugu yaree meel walba haysata maanta la arkayo. shaakir cabdiraxmaan axmed, telefishinka saab, burco.
dhameeyay lacagta wala lacagta ida malidi ma santa wala hayo la dhamay sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel shirkadda dadweynaha